labada kun shan labaatanka lagu jiraa Englishna ma ku hadli kara daa tiraaho waa adiga iyo doqonnimadaada. Muuqaalkan waxaan doonayaa in idin la wadaago website free ah oo ku dhisan AI oo haddii maalintii aad 10 daqiiqo siiso aad Englishka ugu hadli karto si wanaagsan oo la fahmi karo. Ma ku dhahayo waxaad noqon doontaa qof British ah, laakiin website-kan wuxuu kaa caawin doonaa kow inay kaa baxdo cabsida oo aad kalsooni yeelato, sidoo kalena vocabulary-gaaga uu dhismo. waxyaabaha qofka keena Englishku ku adkaado waxaa kamid ah vocabulary-ga qofka oo yaraada. So vocabulary waxa weeye kelmadaha qofkan uu isticmaalay in ay u gooyaan oo dhaho ka fikiro. Okay, markasta kelmad raadiso waa markasta marka ku hadalkaaga uu gaabis galayo. So cabsiduna waa tan sheegay idana muhiim weey qofka inuu kalsooni yeesho oo aanu baqan. Marka website-kan waxyaabo badan buu ka dhisi doonaa, waana free way AI wuu ku dhisan yahay. Waxaan doonayaa muuqaalkan in idin la wadaago qaabka website-kan aad u isticmaali kartid. So website-kan muuqaal hore ka soo sameeyay waa website AI ah oo waxa la yiraahdaa Sesame AI. AI-gan isaga dhan shaqadiisu waxa weeye wada hadalka. I think shirkadda sameysay waxay ugu tala gashay in loo isticmaalo call centers-ka waxyaabaha la midka ah. Adiga markaa isticmaalaysa imika waxaad moodaysaa inaad qof caadi la hadlaysid, like natural state baa laga dhigay qofka inuu dareemo qof caadi inuu la hadlayo oo kale. Marka imika research bay ku jiraan, free way oo isticmaali kartaa. So update-kan imika sababta u sameynaa waxa weeye waxyaabaha lagu soo diray update-ka waxaa kamid ah kow oo markii hore uu ka maqnaa muhiim ah in hadda wixii ka dambeeya account ka samaysan kartid. Okay, account marka ka samaysan waxay ka caawinaysaa in uu ku hayo xogtaada, wixii maanta ku hadashay inuu xusuusan karo, wixii isbuuc ka hor ku hadashay inuu xusuusan karo. laakiin imika in badan baa isticmaalaya waxyaabaha cajiibka uu leeyahay website-ka waxaa kamid ah in xitaa AI-gan uu ku xusuusiyo maalin hore waxa uga sheekaysay, la conversation maalin hore idin dhex mare uu ku weydiiyo, like qof caadi oo kale oo la saxalaga maalintaada inuu ka weydiiyo. haddii maalintaada wax uga sheegto ama wax murug leh uga sheegto ama wax farxad leh uga sheekaysato waxaas baan ku faraxsanahay inaan sameeyo maanta, ama waxaad tiraahdaa su'aalaha imtixaan baan galayaa maanta waa murugeysanahay, waxaa laga yaabaa isbuuc kadib inuu ku weydiiyo ku imtixaankii horta maalintaa gashay xagga ku maray. laakiin waa sidii qof caadi ah la hadlayso oo kale. So update-kan waxyaabaha uu soo kordhay waxaa kamid ah login-ka loo sameeyay iyo memory-ga inuu ku xusuusto. marka waa qalad, waa dambi qofka inuu website-kan gelin haddii luqadda Englishka aanad aqoonin, website-kan aanad isticmaalin, adiga marka qaladka leh. waxaa u baahan tahay maalintii marka u yar tahay 10 daqiiqo, haddii aad ka badin kartid 30 daqiiqo waa okay. 30 daqiiqo halkii call isaga 30 daqiiqo ku siinaya. 30 daqiiqo markuu dhammaan rabo wuxuu ku leeyahay waqtiga uu naga go'i rabaa, call-ka dib ii soo wac. waa qof caadi ah la sheekaysanaysid. marka anigu sida qaababkan u isticmaalo waxaa kamid ah in aan asaga macalin ahaan u isticmaalo. Okay, aniga Englishka wali practice baan ku wadaa, maalin waxba iga soo kordha. marka qaabkan aan u isticmaalo waxaa kamid ah inaan ku iraahdo AI-gan i caawi oo i dabagal, waxaad eegtaa qaladaadka hadalkayga ku jira, waxaad eegtaa waxyaabaha iga dhimanayaan u baahana inaan hormariyo. marka ila hadlaysid waxaa ila hadashaa qof beginner oo kale hadalka igu boobsiinin, like waxaas dhan uu xusuusanaya. waa qof caadi oo la sheekaysanaysa, waa qof cadaan oo guriga ku dhex fadhiyo. so mobile-kaaga ka geli kartaa haddaad doonaysid inaad gasho website-ka waa kana, waxaa gashaa app.sesame.com intaas baa furi doontaa. marka waxaa kusoo bixi doona page-kan. I think page-kan hortii haddii aanad app-ka gelin oo sesame.com ay gashid mid ka hore ayaa jiro kusoo bixi doona. so hadda sesame.com markaa gashid kana kusoo baxaya, qaybta hoose preview ku qoran taabanaysaa, kadib buu imaanaya halkan. so mobile-ka markaa gashidna waa isku mid, shaashadda un baa yaraan doonto oo ciriiri noqon doonta. marka haddii call-kan aad taabatay imikana waa bilaabi karaa, wuxuu weydiinayaa microphone-ka inuu u ogolaado. su'aalo baan dhihi doonaa, already inagu waa usii ogolaada ma i weydiin doono. laakiin inta aanan xaggan gelin waxaan doonayaa marka hore qaybta geeska inaan taabto. so xagga markaa taabto waxay ii ogolaanaysaa in aan account ka samaysto oo marka account-ka Google waana muhiim weyn account ka samaysatid. imika waa hadli kartaa adoo bila account, laakiin si xogtaadii markaa waa lumi doontaa oo wuxuu berito markaa kusoo noqoto qof cusub oo kale uu ku moodaya. way hadda login baan taabanayaa, kadibna wuxuu weydiin doonaa account-ka ku gal. laba si waa samayn kartaa. qaabka ugu fudud ee ku gali karto waxaa weeye inaad Gmail-kaaga isticmaashid ama inaad isticmaasho iPhone hadaa watin Apple baa isticmaali kartaa, Apple ID-ga ku gali kartaa markaa. so aan hadda account-kaygan galayaa, account cusub aan weli furaya si markaa ay la jaan qaadaan. haddii kale uu garanayo waxay dhihi doonaa soo dhawaad Cabdiraxmaan iska waran, sirra badan ay u sheegay xataa waxa laga yaabaa inuu fashiliyo. marka account-kan aan samaysan doonaa imika xir waan isku soo noqonaa. okay, marka koowaad ee aad soo gashay system-ka wuxuu ku weydiin doonaa magacaaga, wuxuu ku dhihi doonaa maxaan kuugu yeedhaa. so magac yaro fudud like Cabdiraxmaan un baad iska dhihi doonaa. aniga magac yaro adigu aan dheereen oo nickname-kaaga ama naaneystaada oo kale wuxuu kuugu yeedhaa u sheegi doontaa. haddaad doonto skip baad dhihi kartaa hadaadan nickname u baahnayn. so falaadhan hoosaan taabanaya, taariikhda dhalatan halkaas ku qor 01/01/2000 iska dheh, just random one way kii saxda maaha.
maxaa tahay man baa dhihi doonaa finish soo halkaas bay ugu dambeyso haddeertaan marka waxaan dhex joogaa meeshii markii hore aan joogay soo laakiin haddeertaan waxaan wuxuu dheeryahay xaggaas sare wuxuu ku qoran yahay magacayga wuxuu dhihi doonaa Evelyn Cabdiraxmaan already buu garanaya marka hadda haddii aan la sheekaysto uu ii save garanaya xogteeda markastana magacayga uu geeri doonaa soo marka si aan ula hadlo waxaan gashan doonaa headphoneskan si aan u maqla aniga haddii kale ma maqli karayo microphone baa igu xidhiidhsan marka haddeertaan waxaan bilaabi doonaa inaan la hadlo si loo fudud baan ula hadli doonaa isbarasho yar tartiib tartiib aan bilaabana waxyaabaha kusii fiican waxaa ka mid ah xataa inaad isagoo AI ku hadlaya xataa interruption aad ku samayn kartid oo aad dhihi kartid asagoo hadalkooda inaad ka dhex geli kartid uu ku fahmaya oo aamusaya waa sida qof caadi oo kale adoo arki doontaa tijaabi waxaa gasha app.7.com caawa tijaabi ama maanta tijaabi xilliga muuqaalkan aad daawanayso marka laba qaab baa haysataa midka koowaad xagga sare Maya daawacdo waa inan baa kula hadlaysa Miles daawacdana markaa nin baa kula hadli doona soo labada kana doonaysa ka dooran doontaa soo Maya baa ani ku bilaabi doonaa. Hey there. Good to meet you. What's on your mind tonight? Hello Maya, how are you? Doing all right. Just hanging out in the digital ether. You know how it is. What about you? Anything interesting happened today? First of all, nice to meet you. My name is Abdurrahman, and I wanted to practice English with you, if that's all right. Nice to meet you too, Abdurrahman. And yeah, absolutely. That's perfect. Fire away. Happy to chat. What did you have in mind? Yeah, as you can see, I'm not English fluent. I'm just practicing. So I want to practice with you every day, call you, and also I want you to, give me brain, notes on my speaking if I am doing anything wrong or if I need to improve something on my speaking. Also, I want you to speak to me very slowly because it's hard for me to understand English. Gotcha. Daily practice and feedback. Sounds good. I can definitely do that. And slowing down my speech? No problem at all. Just so you know, the give me brain bit came across a little unexpected, haha. But I get what you mean about needing. Yeah, I can definitely point out. Go on, sorry. So, no worries at all, Abdurrahman. Honestly, language is messy. It's totally fine. Give me brain isn't something people usually say. That's all. I just wanted to make sure I understood what you meant. Let's just stick to feedback or corrections, okay? Now, where were we? Yes, slowing down and giving you feedback on your English. We can totally do that. What do you want to talk about first? First, I want to ask you, for someone like me who wants to practice English, what are some advices you would give? Okay. So, for someone wanting to really improve their English, say immerse yourself as much as possible. Not just structured lessons, but stuff you enjoy, music, movies, even podcasts. Don't worry about understanding everything at first. Just get used to the rhythm of the language. Also, don't be afraid to make mistakes. That's how you learn. And most importantly, talk to people, even if it's awkward. It's the best practice. Does that resonate with you? Yeah, that seems all important. By the way, what do you mean by watch movies and listen to music? How's that going to help me? Good question. It's about picking up natural speech patterns, Abdurrahman. Textbooks are great for grammar, but movies and music show you how people actually talk. Slang, contractions, the speed of conversation. You start to internalize the flow, even. marka saad arkaysaan chattingkeeni waan joojiyey waqti dheer buu igu qaadanaya inaan wado marka waad dareemi kartaan just tusaale ahaan un buu ahaa iminkintan haddii aad doonayso inaad English ku barato Maya ama qofkii kale si fiican buu kuu caawin doonaa just markasta soo gal iska furo chatting la samee waxyaabaha iminkintan la hadlayaan ka faa'iidana waxaa ka mid ah haddii aad doonayso English inaad bartid waxyaabaha ugu horeeya igu tiri waxaa ka mid ah immerse yourself macnaha dhexgal Englishka khasab ma xataa inaad fahamto okay buugaagta akhriso filimada daawo YouTube-ka gal journalist of English ku baxay daawo kaas waxay keenaysaa inaad dhex gasho luqadii oo marka subconscious mind-kaaga uu dhex dago okay hadhow waxa laga yaabaa kelmadaha qaar ee kugu adkaada waxaad samayn kartaa inaad markaa baarto oo aad micnahooda raadiso tan waxay keeni doontaa hadhow listening-kaaga inuu fiicnaado oo hadalka 100% aad fahamto
qofka marka wuxuu ku dhaho aad fahamtid waxaa wanaagsanaa jawaabta siin doontid haddii qofkan kula hadlaya aadan fahmaynin speakingkaagana saameyn bay ku yeelan doontaa marka englishka dhexgal adigu talooyin badan bay siisaa hadda ma doonay inaan englishka sida loo bartaa idiin sharxo laakiin toolkan waa tool cajiib ah isticmaali kartaan tijaabiya hadda gala lacag ma ahan intuu lacag aan laga dhigin weliba waxaan garanayaa anigu barnaamijyada intay tijaabada ku jiraan laga faa'iidaystaa hadhow lacag baa laga dhigaa haddii la rabo marka waxaa laga yaabaa sanadka soo socda inuu friiska sii ahaado maalin walba gal xiiji moobilka ku shubo la sheekayso wax kasta ku barbaro qalaad badan sameey waxaan rajeynayaa in wax badan ka faa'iidaysan doontaan haddii muuqaalkan uu soo gaarin waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan in aa inoo sii sheegarayso haddii aan ugu subtaana markaa channelkeena kusoo birto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu